Asalaamu calaykum waa idin salaamay asxaabta. Muuqaalkan maanta waxaynu ku eegi doonaa speaking-ka skill-ka loo yaqaan ee ku hadalku iyo grammar-ku miyay is saameeyaan. Miyaan u baahanahay inaan grammar dhigto si aan ugu hadlo English hadhow. Sidee buu hadalku ku yimaadaa. Ka hor intaynan ka jawaabin su-aasha waxaan doonayaa in la wadaago muuqaal yar oo kooban oo aan Google ka baaray. Muuqaalka ka bacdi waxaan ka jawaabi doonaa su-aalaha ka dambeeya intaas, kuwaasi oo ah grammar maxaan uga baahanahay markaan doonayo inaan ku hadlo English speaking yimaado. Ugu horreyn waa inaad fahantaa ardayow, hadalku ma samaysmayo mana imanayo haddii aan jirin grammar. Tusaale dhow waxaan kasoo qabanayaa halkaa. Waxaad sheegtay hadal kaasi oo ah shalay tolo shirku markuu dhacayay gurigaan joogay. Halkan waxaa ku wada kooban xeerarkii grammar-ka. Lama fahmeen waxaan uu yahay wax hadda dhacaya iyo wax shalay dhacay iyo wax soo socda haddii aanu jirin xeerarka grammar-ku. Intaa waxaan kuusii raacinayaa ardayow, macalinkaaga iskuulku markuu dhigayay tense 12 tense markuu dhigayay ma ku baraarugsanayd ereyga tense maxaa loo raacinayay muxuuse yahay. Haddaan kaa daba geeyo, tense marka koowaad waxa weeye waa time, waa waqti. Keliya 12 tense waxay noo sheegaan xaaladda gaarka ah ee dhacayaan. Intaa waxaan kusii darayaa waan kaga faa'iidaysan lahaa muuqaalkan in wax la yiraahdo 12 tense aanu jirin ee ay 3 tense yihiin. Saddexdii tense ayaa lagu kala qaaday oo xaalado gaar laga dhigay. Taas waa baab gaar ah. Ka hadli maayo hadda mowduuca grammar-ka. Video kale aan kasoo diyaarin doona insha Allah. Su-aasha hadda dul istaagaya waxa weeye ma hadli karaysid haddii aanad grammar dhigan, especially khaasatan weliba 12 tense aanad kala fahmin xaaladday dhacayaan iyo xaaladaha loo kala isticmaalayo. Ka bacdi uu hadalku imanayo. Muuqaalka dhammaadkiisa waxaan kula wadaagayaa oo ah 2 skill oo arday kasta oo dhigta luqadda English-ta ay tahay inuu sare u qaado hadduu doonayo inuu hadlo. Kaasi oo ah listening iyo reading. Akhrintii iyo dhageysigu si guud waxaa la isugu yiraahdaa input. waa waxaad qaadanaysay markan adigaa wax qaadanaya. Mar kastoo uu bato waxa aad adigu haysatay oo mar kastoo aad awood u yeelato inaad hadasho. Muuqaalka intaas aan kusoo gabagabeynayaa. Waxaan rajaynayaa inaad wax badan ka faa'iiday muuqaalkan. Wassalaamu calaykum. Aad baan idin salaamayaa dhammaan asxaabta, ardayda, cid kastoo danaynaysa markaa muuqaalkan.